kulan oo wanaagsan daawadayaal waa musaxisho waxaad kusoo dhawaataan falanqeynta kulan ciyaareed xiise leh oo ka tirsan horyaalka Premier League kaasoo dhex mari doona kooxaha Liverpool iyo Manchester United kana dhacaya gegida Anfield ee kooxda Liverpool ay ku ciyaarto. Daawadayaal falanqeyntan iyo sheekooyinka kulankan la xiriira intaanan gudaha u gelin waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe-ka noogu dhufataan qaybta YouTube sidoo kalena Facebook aad naga follow garaysaan waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena. Haddii aynu ku bilowno kooxda Liverpool ciyaaryahankeeda Joe Gomez ayaa kooxdiisa ka maqnaan doona kulan ciyaareedka ay la qaadanayso kooxda dhigeeda ah ee Manchester United kadib dhaawac kasoo gaaray dhinaca muruqa ciyaartii West Ham toddobaadyo inuu maqnaadana waa la filayaa. Ha yeeshee لاعبينta difaaca ka ciyaara ee kala ah Conor Bradley iyo Ibrahima Konate ayaa labaduba si toos ah uga qayb qaatay tababarkii kooxda buuxay. Dominic Szoboszlai ayaa kasoo laabtay ganax hal kulan ah oo jaalayaal batay uu kooxda kaga maqnaa ciyaartii ay West Ham ka adkaadeen. Kooxda Manchester United ciyaaryahankeeda aan saldhigan ee Marcus Rashford bukaan ayuu ku seegayaa kulan ciyaareedka sida maamulaha kooxdaas Robin Amorim uu warbaahinta u sheegay. Bruno Fernandes iyo Manuel Ugarte ayaa kasoo laabanaya ganax ay kooxda uga maqnaayeen. Victor Lindelof, Mason Mount iyo Luke Shaw dhammaan waa ay sii maqnaan doonaan kulan ciyaareedkan. Xaqiiqooyinka kulanka iyo iswajahidda labada kooxood haddii aanu eegno kooxda Liverpool halka khasaare ee ay la kulantay 13 kulan ee ugu dambeeyay ciyaaraha Premier League ee Manchester United ay ka hortagto waa midii 2-1 looga adkaaday garoonka Old Trafford bishii August 2022. Ha yeeshee 7 mar Liverpool waa ay badisay 5na waa ay garab dhacday 12 kulan ee kale. Kooxda Manchester United ayaa 8 ciyaarood oo ay booqatay garoonka Anfield aan wax guula kusoo gaarin. 4 waa laga badiyay 4na waa ay garab dhacday waxaana tani ay noqonaysaa markii labaad ee ay ugu dheereed ee ay guul la'aan ku ahaato garoonka Anfield. Markii hore waxay ahayd 1970 ilaa 1979 oo 9 mar ay halkaas booqatay wax guulana aanay ka keenin. Kaliya hal gool ayay dhaliyeen ciyaaraha gurigooda meel ka baxsan ay kula ciyaareen kooxda Liverpool 8 ciyaarood ee lasoo dhaafay waxaana 5 mar oo ay Anfield tageen ee ugu dambeysay ay weliba ahaayeen gool la'aan. Waa markii ugu horeysay ee labada kooxood ay iswajahaan sanadka cusub oo ay ku wada furtaan tan iyo 1989 markaas oo kooxda Red Devils ay 3 gool iyo gool ku badisay ciyaar Old Trafford ka dhacday maalinka sanadka cusub. Haddii aan u dul istaagno koox waxqabadkooda Liverpool waxa ay sanadka cusub ku bilaabanaysaa iyada oo horyaalka Premier League hogaaminaysa waana markii toddobaad oo sidan ay samayso. Waxaa xusid mudan in Liverpool 2019 iyo 2020 ay ahayd marka kaliya ee ay ku guuleysatay tartanka inta ay hoggaanka soo haysay sanadka cusub. Kooxda Reds ayaa khasartay mar kaliya 27 ciyaarood oo uu hogaaminayo tababare Arne Slot oo reer Holland ah. 23 waa ay badisay 3na waa ay garab dhacday 23kii u dambeeyana lagama adkaan. Halka kulan ee kaliya ee Slot uu khasaaray tan iyo Feyenoord iyo Liverpool sanadka 2024 intii lagu jiray waa kulan ciyaareedkii Reds ay la qaadatay kooxda Nottingham Forest ee dhacay bishii September. 52 kulan ayuu ciyaaray sugeynta labada kooxood sanad ciyaareedkii 2024 ee dhammaaday waxaana uu badiyay 42 ka mid ah 9 oo garab dhacay hal marna waa uu khasaaray. Slot ayaa noqon kara tababarihii labaad ee Liverpool ah ee ciyaaraha labada lug ee horyaalka wada garaaca markiisa ugu horeysa kooxda Manchester United tan iyo George Kay oo sidaas sameeyay 1936 iyo 1937. Mohamed Salah ayaa dhaliyay goolasha ugu badan oo 12 ah. Caawinada sidoo kale waxa uu sameeyay kuwa ugu badan waana 6 marka laga hortago Manchester United. Ciyaaryahan kasta oo kale oo Premier League kaga hortagay Manchester United sidan ma aanu samayn. Salah sidoo kale waa uu dhaliyay waana uu caawiyay 8 ciyaarood oo horyaalka Premier League sanad ciyaareedkan oo kaliya waana ciyaaryahanka ugu badan ee hal xilli ciyaareed isagu intaas oo caawin iyo dhalisa isku dara kulankiiba. Ciyaaryahanka reer Egypt ayaa 17 gool dhaliyay 13 kalena caawiyay 18 ciyaarood oo horyaalka Premier League 2024-2025 uu isagu ciyaaray waxaana uu kulamada uu saftay iyo goolasha markii la isu qiimeeyo iyadoo tiro badan goolasha uu ninkani ku lug yeeshay oo 30 gaaraya. Dhinaca Manchester United haddii aanu eegno bishii December kooxda Manchester United ayaa khasartay 6 kulan oo bil gudaheeda waana markii saddexaad ee kooxdu ay taariikhda sidan samayso waxaana labadii mar ee kasii horeeyay ay ahaayeen April
1926 oo 6 khasaare ay la kulantay iyo Sebtembar 1930 oo 7 mar haddana ay khasaartay. 18 gool ayaa laga dhaliyay, waana markeedii ay ugu badnayd ee bil gudaheed goolal intaas la eg laga dhaliyo tan iyo bishii March 1964. Kooxda Red Devils ayaa eeganaysa inay ka fogaato khasaarihii afraad oo isxiga oo horyaalka ah, taas oo dabcan noqonaysa haddii ay ku dhacdana tan iyo 1979 markoodii ugu horreysay oo khasaarooyin sidaas isu xiga ay kooxda ku dhacaan, iyada oo aan weliba gool dhalin 4 khasaarana la kulanta marka la eegana waxaa ugu dambeysay 1909. Tan iyo Robin Amorim kulankiisii ugu horreeyay ee uu hoggaanka u qabto kooxda Manchester United 24 November, kaliya Southampton oo 7 mar khasaartay ayaa ka badan kooxda United oo 6 mar khasaartay, waxaana kooxda Red Devils looga dhaliyay xilligaas goolasha ugu badan oo 21 gool gaaraya, iyada iyo Tottenham oo iyana goolal intaas la eg laga dhaliyay. Waxay aruursadeen 7 dhibcood oo horyaalka ah oo marka laga jaro 24 ay xaq u lahaayeen, ay khasaarahoodu ka badan yihiin faa'iidada ay heleen. 2 mar ayay badiyeen, mar waa ay garab dhaceen, halkaas waxa ay ka heleen 7 dhibcood. 5 mar waa ay khasaareen, halkaas waxay ku lumiyeen 15 dhibcood inta tababare Amorim uu kooxda hogaaminayo. Kaliya Chelsea oo 31 isbedel samaysay ayaa ka isbedel badan kooxda Manchester United oo 28 samaysay tan iyo markii Amorim uu yimid, oo ma joogteyn karaan safka koowaad ee kooxda 11 ciyaartoy ee kusoo laalaabta. 4 kooxood ayaa waxa ay ka xigaan kooxda Manchester United qadka looga dhaco kooxaha ugu hooseeya. Booska 14aad ayay kooxdu fadhisaa, sanadka cusubna halkaas ayay ku bilaabatay. Taasi waa falanqayntii kulan ciyaareed xiise leh oo dhex mari doona kooxaha Manchester United iyo Liverpool, kaasoo ka dhici doona garoonka Anfield ee kooxda Liverpool ay dabcan ku ciyaarto. Ciyaartaasi waxa ay dhici doontaa marka ay saacadu tahay 7:15 waqtiga Geeska Afrika, oo dabcan la daawan doono. Hal kulan oo kale ayaa isna Premier League laga ciyaaraya, waana kan dhex mari doona Fulham iyo Ipswich oo ka dhici doona gegida Fulham ee Craven Cottage la yiraahdo. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa falanqayntii kulan ciyaareed xiise leh oo dhex mari doona kooxaha Liverpool iyo Manchester United oo ka dhacaya gegida Anfield. Saadaashaada waad noogu reebi kartaa qaybta commentiga ee YouTube iyo weliba Facebooka. Sidoo kalena shareta iyo like-ta noogu dhufta, subscribe-na noo soo saara, waad mahadsantihiin.